السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولادكي محمد سياد iyo channelkii aad uga barateen faafinta khayrka, qisooyinka salafka iyo dadkii wanaagsanaa ee wax ku oolka iyo tarbiyada carruurta, arrimaha qoyska, kobcinta bani aadamka, dhammaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ummadeena faa'iido u leh. Haddaba walaalayaal, waxaan noo wadaa qiso waliba dhowr qiso ayaan noo wadaa oo ka mid ah qisooyinkii zuhdiga iyo ikhlaaska ee dadkii wanaagsanaa, ummadii wanaagsaneyd, salafkii ridwaanullahi calayhim, alquruun almufadala ee quruuntii nabigu fadliga ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, iyo dadkii wanaagsanaa. marka laga sheekeynayo qisooyinka iyo akhbaarta salafka, sheekadu waa ay macaan tahay, qalbigana aad ayuu ugu nuglaadaa, waxaana ku sugan cibro qaadasho waa qofkii wax ku cibro qaadanaya. waxaa laga yaabaa markii aan ka sheekeynayna ambiyada calayhim assalaatu wassalaam in warkeena uu soo gaabto oo aan awoodi kari weyna inaan ka sheekeyno sida noloshooda ay ahayd iyo xaaladooda iyo zuhdigoodii, iyo markaan ka sheekeynayna ma awoodi karno inaan hadalka dhammaystirno. sababtuna waxaa weyaan ilaahay baa wuxuu ku taageeray waxyi ayuu ilaahay uu siiyey oo cismo ayuu siiyey walaalayaal. laakiin waxaan ka sheekeynaynaa dhowr qof oo ka mid ah ummadan dadkeedii wanaagsanaa iyo ikhlaaska iyo zuhdiga, xaaladooda iyo meesha ay kala maraayeen. qofka ugu horeeya walaalayaal waa cabdiraxmaan ibn abi layla, nin la yiraahdo. habeenada ka mid ah, sida caadada ah, habeenkii ayuu dukan jiray, wuxuu samayn jiray habeenkii ayuu dukan jiray. markaasaa marka uu dareemo qof inuu soo socdo, marka uu dareemo salaada waa uu jari jiray. macnaha meesha uu ka gaaray waraca iyo ikhlaaska meeshuu ka gaaray, si uusan qofka u ogaanin inuu salaad tukanayo. markaasuu ordaa firaashkiisuu tagaa si uu u seexdo. marka qofka uu soo galo wuxuu yidhaahdaa, ninkan maxaa waaye xaalkiisu waa sidee? hurdo kama daalo, waqtigiisoo dhan hurdo ayuu ku qaatay, firaashka ayuu iska jiifaa, mana ogo in uu dukado oo uuna ka qarinayo salaadiisa. qofka labaad walaalayaal waxaa weeyaan ninka la yiraahdo bishr alxaafi. aad baa looga sheekeeyaa, wuxuu ah nin caabid ah oo zaahid ah oo aad macruuf u ah. nin baa u yimid la yiraahdo xamza ibnu duqaan. markaasa wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa, uxibu an akhluwa macak, inaan kula joogo oon kula khaali noqdo, keliga kula jooga ayaan jeclahay. marka maalin inaan kula khaali noqdo ayaan rabaa. markaasa wuxuu yidhi, dhib ma lahane maalin noo qabo. markaasaa wuxuu yidhi, maalin baan usoo galay asagoo aan dareemin. markaasaan arkay buu yidhi asagoo teendho u lahaa galay, wuuna dukaday 4 ragcadood oo aanan awoodin buu yidhi mid lamid ah inaan dukado. wanaagooda 4 ragcadood iyo siday u qurux badnaayeen ma awoodo buu yidhi. sujuudiisa ayaa wuxuu ku yidhi, allahuma inaka taclamu fawqa carshika ana adulla yaqsidu bidulli cadam ashuhra, ula jeedaaye ana adulla axabu ilaya min asharaf. dulliga inuu aan ka jeclahay sharafka, agteeda in looga jecel badan yahay dulliga, in laga jecel badan yahay sharafka. allahuma inaka taclamu fawqa carshika ana alfaqra axabu ilaya min alghina. ilaahayow carshigaaga dushiisa adigoo waxaad ku og tahay buu yidhi inaan faqriga ka jeclahay hodantinimada iyo xoolaha. allahuma inaka taclamu fawqa carshika anii laa utiru calaa xubbika shay-an. ilaahaw inaan jaceylkaa waxba ka doorbidaynin baad og tahay. hadalkaas ayuu leeyahay, ilaahay wuuna la khitaabaya oo uu la hadlaya. marka waxaa ay qabatay buu yidhi oohin, waan ooyey. markaasuu oohintaydii maqlay. markaasaa wuxuu yidhi, allahuma inaka taclamu anii low aclamu ana hada huna lam atakalam. ilaah waad og tahay kan inuu meeshan joogo, haddaan ogahay inaanan hadli lahayn, ilaah waad og tahay. marka walaalayaal, qisooyin cajiiba ayay lahayn salafka maca zuhdigooda wax lasoo koobi kara maaha. waxaan kaloo ku darsanaynaa hal qiso kale oo alimaam almaawardi oo qiso leh fi tasniif alkutub, kutubta iyo qoritaankooda. waxay yidhaahdaan wuxuu qoray kutub badan fi tafsiiri walfiqhi wagayri dalik. intii uu noolaana kutubtiisa ma aysan soo daahirin. markii geeridiisa ay soo dhawaatay oo uu siri markan waa bis, waa waqtiga waa dhamaaday, qof uu ku kalsoon yahay ayaa wuxuu ku yidhi,
kutubba waxay taallaa meel hebel bay taallaa kutubta meel hebel taallo dhan aniga ayaa qoray wuxuu yidhi marka haddii aan maaragtay waajaho geerida aan waajaho oo aan maaragtay xilliga ugu dambeeyo nafta iga baxayso marka aan gaaro gacantayda soo geli oo gacanta maaragtay qabo haddii aan gacanta qabsado waxaad ogaataa inaan waxba liiga aqbalin gacantaada haddaan qabsado ku dhago waxaad ogaataa inaan waxba liiga aqbalin oo kutubtaas ikhlaas ba aanan maaragtay ku qorin markaasaa maaragtay kutubta u tag buu yidhi haddii gacantaada aan qabsado ee maaragtay dab qabadsii weliba maaragtay wuxuu yidhi waxaad samaysaa maaragtay dijla ku tur baqaayadeeda webiga dijla ku tur haraageeda haddii aan gacanta fidiyo waxaad ogaataa in liiga aqbalay kutubtaas oo ikhlaas ay ahayd waxaadna samaysaa weli waxaadna ogaataa inaan ku guulaystay wixii aan rajaynayo oo niyaddii khaaliska ahayd inaan ku guulaystay markii geerida ay ku soo xaadirtay gacanta ayuu fidiyey kutubtiisiina waa lasoo daahiriyey intaa kadib markii uu geeriyooday kutubtiisii ayaa maaragtay sidoo kale bannaanka lasoo dhigay marka walaalayaal waxay yidhaahdaan maaragtay salafku aad bay maaragtay ugu dhinacaas ugu horreeyeen oo zuhdiga iyo maaragtay waraca wax lasoo koobi kara maya waxooda waxaa anagana looga baahan yahay inaan ku dayano salafka ridwaanullahi calayhim oo aan noqono dad maaragtay yacni waxa ay haystaan iyo maaragtay waxa maaragtay ay maaragtay bixinayaan iyo waxa la siinaayo ka jecel waxa ay bixinayaan Ali ibn Abi Talib baa waxaa la weydiiyey sideen ku ogaadaa ana min ahli dunya am min ahli al-aakhirah anigu ma reer adduunyaan ah mise reer aakhiraan ah wuxuu yidhi haddii ay ku yimaadaan laba qof midna uu wax kaa doonayo midna wax ku siinayo oo aad jeclaato midka wax ku siinayo waxaa tahay min ahli dunya oo aad nacdo midka maaragtay wax kaa qaadanaya waxaa la rabaa inaad jeclaato midkaad wax siinayso sababtoo ah maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq wax agteena yaal waa dhammaanaya wuu baaba'aya waxa ilaahay agtiisa yaalana baaqi ayuu ahaanaya marka ilaahay maaragtay agtiisa iyo khasaa'intiisa inaan maaragtay wax ku ridano oo sanduuqaasayto maaragtay aan u baxsanayno camalka khaaliska ah aan maaragtay samaynayno wuxuu ilaahay maaragtay nagu abaalmarinayaa janno ayuu nagu abaalmarinayaa iyo maaragtay xayaat albarzakh ama qabriga inuu ilaahay noo waasiciyo ilaah waxaan ka baryaynaa hadalka aan sheegayno maaragtay in kuwa ku camal falo oo ilaahay naga dhigo adinka walaalahana maaragtay ilaahay idinku anfaco sii faafiya walaalayaal khayrka oo walaalaha gaarsiiya sababtoo ah ajirka maaragtay qofna lagama nuqsaaminayo qof walba maaragtay ajirkiisa ayuu leeyahay qofka khayrka dadka tusana intii uu tusay in lamida ayuu leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay xaqa nagu toosiyo naguna toosiyo baatilka na tuso nagana leexiyo subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk